kasta ha cawde markaa toban cudoonaade cirifyada adduunyada markay cidiba meel geysay cidladiyo halkii lagaga tegay ciil la dhugatoobay ciiduu ku taagnaa sunbaa lagu cabbayaa geedii cagaarnaa dabbaa lagu cadaabaa dhuxul laga cabbayaa dad kale lagu ciseeyaa toban kaluu cadceedsaday oo cadceeddii dhacdoo cudurku sii faafay haddii diinta lagu carari jiray maanta laga caag gobonnimadii caynkaa ahayd laga cashiimay calankii inaan la xusin karin waa cod yaa badan caqligoo gabaabsiiyey malaha waa cadaab kulul ceeb male islaamku dad baa geeyey caariga iyaduna cabsida aan dhammaan toban ciqaabeed dheh afkii loogu carabaabi jiray waa cabbaarsaday codka nabadda koortaan u lulay waa cuguriseene maxaan caawa u dabaaldegaa waa farriin culuse waxbase yaan caloolyow dhex dhigin ciidda farxadeede wuxuu cutubkaa lixaad wuxuu rabaa calanku waa hiile dad u ciidma buu doonayaa caawa dabadeede cawadaa cudsoboon iyo rajada ceelal yow maqane allahayow ciyow ugu gargaar calanka ooyaaya ما شاء الله هذه أدبو ما تنسى أنت لا رنتي وقت بدأنا نوصي هلا تعالان لهاد
I'm
dadka Soomaaliyeed runtii markii runta laga hadlo waa dad taariikh fog ku leh adduunka laakiin xilliga maanta la joogo maxaan mudannahay caawo waxaan isugu nimid xornimo laakiin aniga ahaan raaga ahaan waxaan aaminsanahay in ay habboon tahay in loo tacsiyeeyo June iyo July in loo tacsiyeeyo maxaa yeelay dhibaato fara badan oo dhacday kadib maanta ma ahan xilli aan u dabaaldegno waa xilli aan baroordiiq intaan sameeyno aan niraahno warheede waddankeena uu burburay sidee baan u soo nooleyn karnaa qarnimadayadii maanta maxay sidee baan dadkeenii barakacsan waxaan maalin website ka fiirsanaya caruur yar yar oo 12 jir ah oo qoryo loo dhiibay oo la leeyahay had dagaalameen taas xaq miyay tahay waa maya waxa weeye caruurtu waxay u baahan waxbarasho qof kastoo Soomaali ah haddii maanta la yiraahdo lacag ha la aruuriyo ama contribution ha loo sameeyo dadka agoonta ama dadka dhibaataysan oo Soomaalida ah waxa laga yaabaa inuusan taas yeelin laakiin haddii la yiraahdo qabiil hebel ayaa qabiil hebel ku duulaya ee lacag hal la aruuriyo inuu yeelo oo niyadiisu ay ku faraxsan tahay waxaan rabaa horta Soomaaliya dad badan waxa jiray abwaana ah oo qayb ka soo qaatay gobonimadii maxay waddankeena dadkeena ay soo hoyeen 14 nin oo waxa jirtay waagi xornimada Soomaaliya ay qaadatay u soo halgamay oo ahaa magacu waxa la oran jiray SYL taariikhdooda dad badan oo iga xilkasan ama taariikhda Soomaaliya aad iga dhuun daloolo oo ka hadlay wax badan inaan ku dheeraado ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo inta ana waaraha faaliyo oraha kala adimada u kala bixin horta aan iskiin baro waxaan ahay nin qola adag isir iyo qaraabiye waxaan ahay nin ehel badan 49 qoys oo afar laayanabay tusmada oo dareeraha waxaan ahay albaabada aqalka u shisheeyo oo afta bariga ugu xiga oo ay nin magac ku leh Afrikaan baan ahay abtirsiimaheedii halkaan uga aroorana aan ka ambaqaade waxaan ahay dhul aarana ari iyo loo yeegel nooc kasta ugaariyo nin adduun ku foofsada isticmaal nin nacabo eedeeyo weligii kana aragtaanahay Afrika xorowdo isku ayni noqotiyo waxaan ahay nin aamina inta hore u socoto adoonsiga ka dhiidhiye kaagtaagan baan ahay bulsho nabad arrimiso ifka sama la jecel oo kii ku adeedoodana ay siinayaan nahay arba iyo libaax iyo nin cadowga eega ka irdhoobayaan nahay ujeedada ninkaan ahay garataya anoo huba aan ku iftiishe geeska Afrika iyo Soomaali baan ahay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo mar raba inaan ku dheeraado waqtigu aad u yar dartiis sheeko yar oo murti ah oo laga yaabo intiinaan meesha isugu timin inaad wax ku fahantaan hadda ka hor waxa la yiri nin Araabi ah oo ribaadiya ayaa u tagay masaajid markii masaajidka uu galay oo salaadii duhurka la tukaday kadib baa wadaadka istaagay wuxuu yiri waxaan rabaa dadka islaamka ah oo isugu yimid masaajidka inay donation maxay bixiyaan qof kasta wixii awoodo maxaa yeelay haddii qofka uu sadaqaysto maalkiisa Ilaahay laban laab ayuu uga dhigaa ninkii ribaadiya uu istaagay wuxuu yiri sheekhu haddii aan xoolaheego dhan bixiyo taas macnaheedu waxay tahay inaan laban laab helayo markaas sheekhu wuxuu yiri haddii aad dar Ilaahay u baxsato xoolahaas waxa laga yaabaa inaad maaragtay Ilaahay uu laban laab kaaga dhigo ninkii sheekha ah xoolihii uu dhiibay isagoo aan wax hadal ka celin subax kasta markii uu soo tooso xeradii uu aadaa wuxuu siraada kulli xoolihii waa ku bateen oo laban laab bay ku noqdeen mase wuxuu tagaa meeshii ebera uu soo laabtaa markaas haddana ku laabtaa maalintii kale waa sidii oo kale asagoo xanaaqsan oo raba inuu wadaadkii ku laabto oo yiraahdo wadaadu been baad ii sheegtay baa maalintii markuu rabay inuu masaajidka ku laabtaa shuban ku dhacay ninkii odaga shubankii markuu ku dhacay oo xanuunsaday
buu ilaahay u laabtay wuxuu yidhi ilaahayow adaan kuu toobad keenayaa waan dambaabay xoolana ma damacsani ilaahu caafimaad iigu bedel xoolo ma rabeen ninkii odaga ahaa sidii markuu ilaahay u baryey caafimaad baa la siiyey uu fiicnaaday kadib markuu fiicnaaday kadibna xoolihii way u bateen xoolo badan buu xeeladii ugu tegey masaajidkii ku laabtay maalinta dambe sidii oo kale wadaadkii oo leh waxaan rabaa donationkii sidii caadadu ahayd markaasaa waxaa dhacday uu istaagay markii ninkii wadaadka ninkii ahaa reer baadiyaha markaas uu yaabay wuxuu yidhi ninkii wadaadka ahaa maxaa soo wadaa markaas wuxuu yidhi waa sax ninkii wadaadka hadalku idin leeyahay xoolaha haddaad wax sadaqaysataan ilaahay labanlaadkiisa uu idin siinayaa laakiin shuban badan ayaa ka horreeya soomaaliya in nabad la helo oo dadkeennu israacaan dadaal badan ayaa ka horreeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Spécial dédicace à tous les chanteurs pompiers de Côte d'Ivoire. Pianiste en France de Maï. Ministère militaire 007. Maman Viera, Madame Terouma, Petit de Gumita. Hassan, Nyangola, Adiba, comment ça va ma petite? Ahmed Jaguar. Yankouma Bob. On est ensemble. Toi-même.
ce concert musique, c'est bon, est-ce que ça va là-bas? L'ambiance facile introduite par avec DJ du Temple Mastodon. Attention, la fête de la Bastille Blanche, tout à l'heure, nous allons créer une petite ambiance. Evry, Jean-Paul, Benoît Koulibaly, Chakaka Mike, Frangé, le lionceau du Dalois, Chef Neto. Comment ça va? Le brillant normalement, on fait de tous les temps. On est dans 5 heures et c'est nous, comment ça va? Et à savoir, un peu l'eau pour soigner. Enlève-toi là-bas, on enlève vous qui Alex Pem, tu as la fête, regarde, génération million spéciale.